nimankii ayaantii gumburo obaada dhibaayey ardaashii jidbaalay heshay igu unugoysay nimankii uluufiyo uluufigu ogomeeyey ma garaysni gaaladu inay lebeen la guuraane ebownin goobabaan hoy guni rifaysaaye ebow anaa kaga garlehe gushaha jidbaale ayaanu hadda ku jirnaa oo waxaanu soo gaarnay hadda dagaalka afbakayle buurtaas saamaale la yidhaha saamaale bay dhibaatada iyo xabadii ugu horreeyay daraawiishda sayid maxamed ka bilaabantayoo ingiriis burco ilaa berberu ka soo dulay ceel dhaab buu ku tashaday ceel dhaab buu wuxuu kaga tashaday inuu nugaal dadka jooga laayo wadaadkuna halkaa meel buura halkaas arki doona ciilcaanood la yidhahdo fadhiyey colkuna afbakayluu fadhiyey halkaas buurtaasuu geelal ku urursaday dooxadaasoo roob ku da'ay buu geelal ka urursaday reero niman nuur axmed la yidhahdaa leeyihiin wuxuu yidhi marka qolada maxamuud garaad waa niman budhcadoo waxay doonayaan innagana kolle waana soo weerarayaan inay boobeen hantideenna iyo fardeheenna ama ay berbere weeraraan waa qole fardoolaya marka iyaga waa inaynu iyaga uurbaadnaayoo qabannaa oo istifsaas buu samaynayay ingiriisku si dadka loo kiciyo laakiin colaadda qolada garaad faarax iyo wadaadkan ku wajahanaa buu yidhi kuwanna aynu marka hore munaawashaad ku samayno buurtii saamaale dagaalkii saamaale afbakayle ka sii horreeyey colaaddu ka bilaabantay afbakayle saamaalena waa halyeeyadii daraawiisha lagu hirtiyo hooyadii geesiyada haybadale dhashay halgamacaanahiyo sooley hedha sooley sooley hedha sooley hal aboor gabyaba walaga hagaadhay maanta halkana waa goobtii haradhiig hadda waxaan saarannahay kurtii uu mashiingaanku u saarnaa colkii ingiriis oo u watay gaalkii suweyn la odhan jiray sidii goobtii jidbaale ayay u dhisan tahay afartan dhinac baa u jeedee afartan dhinaca bannaan baa ka xiga geedkan quraca waa dabadeed bax intaa ma oolin markii hore yoolku wataas bannaanka markii hore macalinku hadlayay buu daraawiishta ku dhacday halkaasaa dhiigga haradhiig kula baxay sida la sheegay oo taariikhda ku qoran qurac halkaa ka soo muuqato madaxa cawlan buu ku yaalaa ceelkii la odhan jiray afbakayle halkaasayna fadhiya daraawiishtu sayidkuna ula ka dhigo waxaanu tegaynaa afbakayle oo ah bartii daraawiishtu galilyoonayey cadhoomiyay gubaatay labtaydu gogoshii la ii dhigay miyaan gaydh la qaaban waaye aanu halkan taagannahay macarikadii ugu horreysay ee dhex martay daraawiishtii soomaaliyeed iyo isticmaalkii gardaroolaha ahaa ee britishka ama ingiriiska british empireka marka halkani goob xabadi ka dhacdo meesha ugu horreysay waa goobtii afbakayle markii dambena heelkan loo bixiyey sababta daraawiishtii ku dhamatay heelkan bannaan ama bannaankan haradhiig la yidhaahdo ee labadan geed ee darigaa iyo ceelku ku yaallo dhiiggii ku daatay ee uu leynayay mashiingaanka kurta haradhiig ka sarrayso oo inoo muuqan doontaan sawiri doonno oo ilaa maxaanku idhahdaa 800 mitir ama 500 mitir u jirta kurta mashiingaankii saarnaa iyo qorigii maximka ahaa bannaankan haradhiig gumaadku ka geysanayey oo uu hore ugu faanay dowladda ingiriisku in qoriga mashiingaanka ahi uu si wacan u laayay basharka gaar ahaan labadii xarbi ee daraawiishta uu ku qoray in mashiingaanku uu ahaa qoriga gumaaday nimankaas xuruubu daraawiish fi suudaan wa fi soomaal marka halkan bay ka bilaabantay macarikadu buurtaas afbakaylaa daraawiish ka soo duulasay mashiingaanku buurtan u yiilay halkanoo bannaanka oo haradhiig la yidhaahdo oo markii dambena ceel noqotay oo dareedoo kaamkaas aad aragtaan haddeerto dadka xoola dhaqatada ayna joogo oo aafadii iyo dhibaatadii ka muuqato weli gafaduu ku sii daray xaqii guudka laga saaray anigu waa u garaad qabay inuu gegii waraabo
safarkii aanu saaka ka soo baxnay caasimaddii laascanood jid baan ku soo bilownay hadda waxaan ku dul taagannahay iyadoo goor galab ah ceelkii afbakayle waxa weeye afbakayle waa ceelka magaciisii laakiin goobtii dagaalku ka dhacay ee Daraawiish ku laatay Haradhiig bay ahayd sidii macalinku idiin soo sheegay hadda ceelkii afbakayle oo dowrmay ayaan dul joognaa waa ceel taariikh badan iyo hadal hayn badan kula taariikhda Daraawiishta iyo deegaankaba sidii saaka aan ugu akhrinay xogaaga yar ee fiiro bixinta ah gabaygii yaraa gaabnaa ee Jidbaale ayaan halkana ku suntaynaa iyadoo la xiriiraysa goobtu uu kan magacii ku qaatay laakiin goobta Haradhiig bay meesha wax ku dhinteen sidii macalinku idiin sheegay haddana Cabdisaaq Sugula ayaa noo sheegay waa gabay kamid ah gabayadii Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye oo ka tiriyay goobtii Haradhiig halkan waa afbakayle gabaygana waa kan ingiriiska nimankii wadeenagu asibayey afbakayle nimankii kufriga urayay keenay ee odagooyo na dhigay aydi daaratoole nimankii ikhwaankii jaray abiga u laayey raggaa aheelu khayrka warmaha kala ajon waayey ee umaal daradiis gildhiga igu afuufaa dhulku kala xariirsane boholaha xergega iyo xidhxidh iyo boocame xudun iyo taleex iyo laascaano xaruntii gumaystaha xasuuqudee xaqu dirir ku joogay maanta oo taariikhdu tahay 2 bishii 2 2021 maalin talaada ah bal waxaan insha Allah isku dayanaa aniga iyo koox taariikhyahana ah iyo wariyayaal bal inaan idin soo gudbino dhig waa laga maqlaaye bal in indhahana laga barto goobta loo yaqaano Jidbaale oo ahayd dagaal jihaada oo dadkii Soomaalida ah ee dawladda Ingiriiska ay dulmiga ku waday iyo gumaysiga dadkii ka dhidhiyay hogaamiyahoodii Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan iyo intii la socotay culimo iyo odayaal iyo isimo wixii la socday ay dagaal ku wajaheen 100 sano ka hor goobtaas bal suuradeedii iyo say u dhacday iyo goobtu bal aan wax yar ka sheegno halkan oo aan taagannahay waxa la darayo xunsho oo sawirka aad ku arki doontaan haddii aan yiraahdo halkan waxa weeye sida sawir ku arki doontaan meel jeexa oo ximid ah oo dhooq hoose god hoosaan sida dadka qaar buu yaqaan meel hoose god hoosaada halkan Daraawiish baa fadhiday ceelka Jidbaale xagga waqooyi buu inaga xigaa halkan bay ku gabanayeen qolada Daraawiishta ay habeenkii sida la wariyo iyaga iyo Allahoode ninkii taliyaha Sayid Maxamed u magacawday uu xanuunsaday habeenkii baa qandha Ilaahay u keenay shircoon baa la oran jiray buu ku qoray buug nin masaarihi inuu habeenkii xanuunsaday taladii waxay isugu yimid rag baa isku qabqabsaday laba nin waxay yiraahdeen war jeexan ximidka ah aynu iska sugno nimanka aynu soo weerareyno inagu yeenan banaanka ugu bixin banaan laba nin saas isku raacday laba nin oo kale waxay tiri midna wuxuu yiri duska xudun aynu tagno oo buur caanood baa halkan ka muuqata duska xudun markay soo marayaan annana buurta fuul aynu la dagaalano labada nin mar walba waxay hoos ka xariiqeen inay suurtagal ahayn banaanka iyo fardaa in la soo saaro laba nin oo kale ku dooday nimanka gaalada waa ka adkaanay aynu sideenii fardaha gamaanka dhinac walba ka gelino oo kulli waa dhimanay aynu iska shahiidno kuwa kana tala xumay u arkeen geeri xun inay ka iman doonto tiibay noqoto sida iyaga Ilaahooda ilaan waa dadku taariikhda Soomaaliya waan qorantay waa la yaqaanay nin oday hool la socday wada isticmaalka ah oo waliba dadka deegaanka ka soo jeeda reer magaaleedka ah oo colaaduhu qaab qabiil iyo waxyaalo badan baa qarniga wuxuu jiray maanta ma jiraan xarakada Daraawiishada qofba sabab iskaga diiri jiray qaar waa ka gardaraayeen qaar wadaadka inta gabdha siiyaan bay xumeeyeen qaar ba sabab iska ahaayeen dadku
asbaab badan baa iska jiri nin asbaabaha uu mid ka mid ah isagu si u tafsiiranayay wada gaalada ula socday baa wuxuu ku yiri saar daraawish annaga naqaana ximidkaasay ku gabanayaan hoose haddii dhowr nin loo diro oo ay xabadeeyaan waa soo baxayaan ximidka waa ka soo baxayaan iyagoo le gaala urtay kadibna bannaanka iyo mishigaankaasaynu isla helinaa warkiisibuu gaalku qaatay 4 nin oo fardoolay oo gaala buu u soo diray gaala raacyadii iyo gaaladii nimankaas aroortii hore xabadeeyeen nimanka si ay ximidka uga soo cararaan oo caadifadaas aanay hubsiga lahayn ay bannaanka iyo mishigaanka isugu baxaan waa xabadeeyeen kadibna ila qorshay lahaayeen waa carareen daraawiishi waxay ku tala gashay mar hadday nimankii xabanay carareen de waxaad yeeshaan ka daba tago waa laga daba yaacay si mar haddii la isu colaadsan yahay oo ciidan isag fadhiyo xabada bilaabanto lama qolana qol wax moosan la baqayo hadday xabada doonto waa shay dabiici ah waa dabiica bashariya waa dabiica bashariya oo labada ciidan isku urbaaran haddii qol xabada bilowdo qolada kale inay ka jawaabto daraawiish waa oogsatay ximidkii bay ka baxday dabin iyo qadar qorneyd bay la kulantay marka insha Allah waxaanu tagi doonaa banaankii halkan waa ximid wariyaha idinka dhigin doona suurada halkan ay daraawiish ku gabanaysay markii dambana dhaawacoodii ximidkan ay loo soo bixeen halkay waxa la daray xunshaal daray xunsho waxa loogu bixiyay kumaankii meedka ahaa ee halka la dhigay iyo kumaankii dhaawaca markii daraawiish waa jabtay carartay meedkoodii baa xunshadii ka dhirigtay iyo dugaagii baa saasa daray xunsho loogu bixiyay hore loo oran jirin baariga daray xunsho hore loo oran jirin daray xunsho halkan meedkii ku dhamaaday intii carartayna buurta buur aanood oo duwariyuhu suuradiisu gaari karto ayay nafti kula carartay in nugaal bay hoos ugu carartay daraawiish goobta waa laga gorroonaaday inkastoo iyaba dad bidan dileen oo laayeen haddana goobta jidbaale waxaa la sheegaa 800 ilaa 1000 waxaan ka yarnina ku dhimatay 1000 ama 3 wax ku dhowna ku dhaawacantay waa ku taala adabka iyo suugaanta Soomaalida guuldarrada meesha ka dhacday Ismaaciil Maraa wuxuu lahaa goobtii jidbaale iyo xargaga guuldarradii tiile gambigii ka dhacay ruuga iyo gudurigii hagagaboodeeda beerdhay wax la isku gooraamay waxaan iri sayidkii darwiishkii didmiyaa isu aragtiin wuxuu yidhi durdurada naciima malaga daadahiya maanta ay tahay bishii Febraayo labadeedii 2021 waxaanu ka soo ambabaxnay magaalada Laascanood waxaanu u soo ambabaxnay banka Jidbaale oo 60 kiiloomitir ka xiga dhanka waqooyi magaalada Laascanood waxa ka dhacay bankan goobtii shanaad marka dagaalada waaweyn ee daraawiishta laga tago goobihii waaweynaa ee daraawiishta 48 goobood baa dhacay laakiin goobihii waaweynaa ee wali dhagaha ummadda iyo taariikhda ku sii hadhan waa goobteedii shanaad waxay dhacday 1905 Jidbaale hadda ayaanu joognaa waxaanu soo marnay daray xunsho oo halka inooga muuqata hadda waa meeshii markii hore colkii daraawiishtu joogay oo ay soo galeen markii dambana markii dagaalku dhacay dhaawacoodii dib u la aadeen daray xunsho waxa lagu bixiyay sidii macalinka markii hore soo sheegay dhaawacii daraawiishtii la geeyay ku naf waayay ayaa xunsho ku habsatay ku cuntay daraawiishtu bankan aad bay ugu jabtay wixii ay gumaystaha Ingiriiska gaarsiiyeen iyo wixii ay waxaan garanaysaa ka qanimaysteen marka la iskaga tago waxa weeye goobihii waaweynaa ee daraawiish jab ka soo gaaray ku dhintay oo meydkii iyo wixii ku dhintay tiradoodii waa tii macalinku inoo soo sheegay hadda waxaanu taaganahay goobtii Ingiriisku uu dhistay oo ah bartii ay daraawiishtu weerar ku soo qaadisay halkan hadda aan taaganahay waxaanu ku haynaa calaamado badan oo ay ka mid yihiin geedkii higlada ahaa uu soo goostay oo uu Ingiriisku ku dhisanayay bartan hadda aan taagano duntay dhowr waxba uu dhistay Ingiriisku meeshan kan waa geedkii higlada ahaa weeye qorisaadkii oo waliba qori cas ah waa kan aan soo saarnay oo bartan ah waxa kale jira oo yaala oo si googoodi ka sii muuqda sanaaduuqdii rasaasta oo ka soo saaray halkan ku yaala
goob weyn bay ahayd afarta jaaba wuu jeeday waayo ban weeye dhinac kasta faras ku soo ganacsiga ugu soo geli afarta dhinac way u jeedeen waxaanu haynaa qorigii machine gun-ka ee maalinta halkan ka dhacay qashradiisii kuwaas ah waa hubkii mujaahidiinta daraawiish lagu laayay ilaahay jannadii ha geeyo bartani marka waa goobtii jidbaale oo ka dhistay ingiriisku waa dhowr meelood taas waynu tegi doonaa taana waynu tegi doonaa halkaas xerada xaarinta ah oo hadda halkaa inaga xigteen kamaroo degi doonto waa meeshii uu ammaan duulay ciidanka ingiriisku uu fadhiyey habeenkii oo ka amriyay ciidamadiisa ay watay guurti xaja goysiyo xaruntii garaadkay gurigii xornimadee gesiyada xambaaratee xubnihii daraawiish xuduntoodu taalaay xuduntoodu taalaay bulsha nabad ku xeel dheer xarbigiyo dagaalkana yaqaan xaajadiiso laab xadhan u guba waxaa lagu xasuustaa waa xalin uu hoodla iyo xalin waxaanu joognaa jidbaale ceelka la yidhaahdo haddeerna tuulo ah ceelkaas oo ceel taariikh dheer la ah ayaanu deganahay odayaga ceelka ayaan ahay dhallinyarada qurba joogta ah ee taariikhda ururinaysa daraawiish dhulkii dagaalladu ay ka dhaceen ayaa igu timi aanu ku soo dhoweynay hadda waxaanu taagannahay xabaalo wadareedkii taariikhdii in cabdilla xasan dadkii ku leeday halkaa xabaalahoodii baanu taagannahay dhul fara badanna waanu soo marnay taalladii birigaanka loo saaray daraawiish halkii dhaawacu uu ku leeday uu gaalku laayay ee daraawiisheed ee daraxunsho la yidhaahdo goobahaasoo dhan baanu soo marnay haddeer waxaanu joognaa jidbaale ceel ahaa haddeerna tuulo ah wax fara badan oo aasaarihii lagu laayey dadkaa diinta islaamka u dagaalamayey ayaa halkan dhallinyaradan ku soo ururisay aanu soo marnay ceelkan waa ceel taariikh dheer taariikhda ay soomaalidu xornimada ku qaadatay goobaha ay ka soo bilaabantay weeye haddeertana balligii dhiiggu fadhiistay markii la laayey daraawiishta dhulkii lagu aasay ee iyagoo kudlada xabaalaha lagu aasay ayaanu joognaa ceelkaasoo xusid mudan ayaa haddeerto dhallinyaradaas ay noogu timi wax alla wixii macluumaad ahaa way ka soo hadleen way soo ururiyeen annaguna aad iyo aad baanu ugu hambalyaynaynaa ceelkan degaan baanu ahay waan joogaa taariikh dheer dhowr iyo 40 sannadood baan iiley jidbaale waxay ku soo caanbaxday dagaalkii daraawiishi ay ingiriiska ku qaaday ka hor taariikh muu lahayn dagaalka ay daraawiishtu ku le'atay oo ingiriis ay kula dagaalantay ayuu jidbaale ku soo caanbaxay qabadna cidi wax uma qaban oo meesha taariikhiga cid wax u qabatay oo horumarisay ma ay jirto haddeer ceelku marka abaaruu dhacaan wuu biyo yar yahay ummad fara badan baa joogta wuu biyala yahay dadkuna aad buu u yaallaa ceelkan taariikhihiisu sidaa weeye gudcaddaa wuxuu yidhi in hadduu gardana yahay gobashiisa kuma lido waaligiina kulmare gudcaddaa wuxuu yidhi in hadduu gardana yahay gobashiisa kuma lido waaligiina kulmare siyada darwiishkuna geeri
cabsoodaan moo kala gudnimadiyo dalkoo laba u kala go'aa gobanima yutiriraa gayigayilaashaan gob kastoo la joogay kukuban dulmi lahaa maalintu waa 2 bishii 2 2021 waa aniga Cabdisaam Maxamed Sugulle ah maanta odayaal badan iyo rag badan taariikhyahana ayaa xoga badan halkan laga bixiyay waxaan taaganahay balligii sidii lagu sheegay balliga Jidbaale oo ahaa balligii markii daraawiish la jaray dhiigga isu bedelay ee buuxsamay markii dambana la dhigay xabaar wadareedyada aadka u faraha badan si wanaagsan oo diiran gobonimada ayaa naloo soo dhaweeyay waan u mahad celinayna reer Jidbaale si wacan taariikhda runtii way noo tuseen waan noo xasuusiyeen goobo badan oo muhiim ah wayna geeyeen gabayga Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ahaa nin gabayay gabayga Soomaaliyeed caan ka ahaa gabayadiisuna ay aad u fara badnaayeen waxaa jirtay markii Jidbaale uu dhacay inuu tiriyay gabay aad iyo aad u la yaab lahaa gabayguna uu ahaa gabay aad u dheer maantana aynu 6 tuduc oo kamid ah oo gabayga goobta ah kuna qotantay dagaalkii Jidbaale iyo sidii loo jaray iyo nimankii dabadhilifka ahaa ee gaalada u adeegayay ee u soo horkacay uu ku xusayo nimankii ayaantii gumburo obaada dhibayay ardaashi Jidbaalay heshay igu unugoysay nimankii ulufigu ogumey nimankii adduunkayga dhacay ariyo geliba anigoo islaamaba kuwii arxaami waayey nimankan ilaahow lahaa ayda iga doono dunjigii mawata kufriga daba ordayseene wataad igu dirayseen markaan didayoo nacaaye watow digayseen markaan dullan soo wuxooye wataad colaadii doraad igu daaranteene markaan diirtay wataad dushiyo dociga boobteene wataa markii aan dad idhi dahageelisaneen wataa dushiina u rarteen duqiyo waa yeeleen watowla deeriseen sidii dul walaala aheen markaan diiday wataad warmaa igula dusheeneen markaan duulo wataad dhammaan iga digaysaneen wataa dariiqyada tusiinu dednaan jireye guurtaan digniintiyo ergada idinka dayn waayey wataa damiin igu qirteen dawrisoo fallaaneen digriga iyo eedaanka waata ka durugteene wataad inuu dawlad yahay dadku beexisaneen debnihiinna wataad inuu dego ka sheegtaneen goortuu dantiisii helayna idin dulaaqeeye dabin buu idin qoolayaa wa idin daagayaayeen dirhamkuu idin quba ayaa dib u go'aysaaneen markaa hore dabkuu idinka dhigi dumaarsidiise markaa xigaan haddaaba qaadayuu idin dareensiine
markaa xigaa dalkuu idinku odhan dunyo dhaafsadaye markaa xigaa dushuu idinka rari sida dabeeraaye giddigeedba soomaali baan dayrka ka ahaye dhaxaan darawiishta idhi doonta gaaladaye dhaxaa askaara u dalbaday dabada taageene